بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دوادا برنامجكي نصيب سر رمضان وبرنامج aan ugu talagalnay in dadweynaha Soomaaliyeed bisha Ramadaan intuu socdo aan ku weydiino su'aalo ayna su'aalahaas way ka jawaabi doonaan kadibna su'aalahaasi waxa qofkii ka jawaaba awaalmarin ayaan ku siinaa maalin walbo marka laga reebo maalinimada Jimcaha ah waxa kala socotiin YouTube-ka Go Turkian Study 5 su'aal ayaan dhiibnaa maalin walbo waxaan ugu faa'iideynaa dadweynaha Soomaaliyeed waxaan fiirinaynaa qof ugu horeeyo iyo nasiibkiisa aan tijaabin insha Allah aan ugu horeen aan ku soo dhaweyno waxaan la joogo magaca ku bilaabay Samiro ay Samiro halka number ka soo baxay su'aalan ku weydiinayna Samiro number 3 baxsatay number 3 waxa ku xusan webiga ugu dheer adduunka شو كيا لسنا ما يا webiga magaciisa webiga ugu weyn ee adduunka magaciisa laga rabaa ee ugu dheer macna waa ma santay maadan haleelin bismillah aan fiirino qofkan xiga iyo nasiibkiisa halka number kala soo bax number 5 waxa ku soo baxday waxa laga rabaa Fircoon wasiirkiisa magaciisa وزير أيها الله فرعون مجلس على جاربه فرعون وزيركيس هام لنا إنه يهاي عبد الله المدير وما سنتي ماذا هلين هو هورين كسر دو برنامج كا أديكم مجاعة كبلاوايو وعليكم السلام ورحمة الله مجاعة فاطمة عبد الرحمن أي فاطمة نمبر بحثه لمبر سدح لمبر كيو هاجله ها وبيقدر أدونك على جاربه مجلس ما قرنا وما سنتهاي ماذا هليلين كسر دو برنامج كا أديكم مجاعة كبلاوايو مختار عبد هذا مختار هل كان نمبر كسر بحث سؤالا كويدينينا لمبر سدح waxaa ku xusan webiga ugu dheer adduunka magaciisa laga rabaa adduunka waxa ku yaal dhowr webiga ugu dheer ee ugu weyn ee adduunka mara magaciisa laga rabaa Niil waay webiga Niil waay Hambaliyo uu ka jawaabay webiga ugu dheer adduunka waa Niil Hambaliyo awal marin buu nagu leeyahay barnaamijka waa barnaamijkii nasiibsan Ramadaan ilaa iyo hadda waxaa noo baxay hal su'aal aan fiirino saaxiibkeena iyo nasiibkiisa ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo حسن عبد الرحمن محمد حسن number soo baxay su'aalan ku weydiinayna number 5 waxa laga rabaa Fircoon wasiirkiisa magaciisa sheeg Fircoon wasiir ayuu lahaa la taliye magaciisa laga rabaa Quraankan waa lagu sheegay taariikhdana waa lagu sheegay iskuday qofku macna markay musiibo ku dhacdo uu tagi jiro Fircoon qofkii la shaqeyn jiray wasiirkiisa ahaa waa ma santahay maadan haleelin oo kugu soo dhaweynaa barnaamijka waa nasiibsan Ramadaan ku soo dhawow adigoo magaca ku bilaabayo ايوه عبد الرحمن حسن محمد عبد الرحمن oo halkaan numberka baxsanaysa su'aalan ku weydiinaya soo dhawow soo baxso fur number 4 waxa laga rabaa nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay nyaanyuurta imise ilko ay leedahay isku day waxaan tijaabi leeyahay ina haleesho waa laga yaabaa ina gaftin waa laga yaabaa total miya masa ilkaheedo dhan nyaanyuurta dhowr ilkay leedahay tirada laga rabaa bis 24 waa ma santahay maadan haleelin ku soo dhaweynaa barnaamijka ugu horeen ku soo su'aasha waxa kugu soo aaday su'aasha number 2 waxa ku xusan xayawaanka u adkaysiga badan dhanka haraadka ama oonka magaciisa sheeg xayawaankaas inuu geel yahay u maleynaa waa geela Hambaliyo xayawaanka ugu adkaysiga badan haraadka waa geel Hambaliyo awal marin baad nagu leedahay Hambaliyo soo dhawow ugu horeen ku soo dhawow barnaamijka nasiibsan Ramadaan adigoo magaca ku bilaabayo bismillah magaciisa maxamed tuxu ay halka numberka soo baxso su'aalan ku weydiinina hadaa ka jawaabta awal marin baad nagu leedahay su'aasha number 4 waxa ku xusan nyaanyuurta meeqa ilka leedahay imise ilka ay leedahay
بسم الله جوابت تاسو day waxay noqonaysaa lix ilkale waa maasan tahay maadan haleelin oo isku day oo ku maasan tahay marka hore ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan ee taabagelinaysa shirkadda Go Turkan Study ama magaca ku bilaabayo ana liibaan min al-abdule ay liibaan number soo baxso su'aalan ku weydiinayna kadibna awaal marin baa ku guuleysanaysaa hadda ka jawaabto number 2 waxa ku xusan qaaradda ugu weyn adduunka shanta qaaradood hal qaarad baa ugu weyn magaceeda sheeg qaarad ugu weyn Soomaaliya ma wadanku ma dhihin qaarad Afrika waa maasan tahay maadan haleelin oo ku maasan tahay isku dayaaga ugu horeen ku soo dhawow barnaamijka nasiibsa Ramadaan oo ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo shukri okay halka number ka soo baxso su'aalan ku weydiinayna furo numberkaaga fiirso number 2 qaaradda ugu weyn adduunka laga rabaa shanta qaaradood hal qaarad baa ugu weyn magaceeda sheeg adduunka dhana adduunka waxa ka jira shan qaaradood Soomaa shanta qaaradood hala ugu weyn midda ugu weyn magaceeda laga rabaa hambaliyadaas ku guuleyso North America maya qaaradan ku dhahay qaarada Afrika waa laga weyn yahay oo maasan tahay maadan haleelin oo ku soo dhaweynaa barnaamijka ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan ee taabagelinaysa shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo soo dhawaay magaca Axmed Ali Cabdi Axmed oo number soo baxso oo mahadsan su'aalan ku weydiinayna lambarka aad baxsatay waa number 4 number 4 na waxa ku xusan nyaanyuurta imise ilka ay leedahay isku day nasiibkaaga nyaanyuurta nyaanyuurta imise ilka ay leedahay oo maasan tahay maadan haleelin oo ku soo dhaweynaa barnaamijka ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo magacayga waa Cabdishakuur Maxamed Xaashi Cabdishakuur shan su'aal ay ahaayeen laba way baxday saddex soo hartay number soo baxso numberka sheego number 4 nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay waa su'aal cajiib ah oo fudud jawaabteeda isku day hay 10 ilkooda waa maasan tahay maadan haleelin oo ku soo dhaweynaa barnaamijka ugu horeen yiri saaxiibkeena ku soo dhawo barnaamijka ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study oo su'aalaha ah adoo magaca ku bilaabayo Yahya Abdirashiid ay Yahya halka numberka soo baxay su'aalan ku weydiinayna Yahya number 5 waxa laga rabaa Fircoon wasiirkii la shaqeyn jiray magaciisa laga rabaa ya waa maasan tahay maadan haleelin ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan oo ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo waa ku dhaway magacayga Caasho Mukhtaar Aadan ay Caasho shan su'aal ay ahaayeen laba way baxday saddexan su'aal numberka soo baxso number 4 nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay kugu soo aadi nasiibkaaga tijaabi maasan tahay maadan haleelin oo kugu soo dhaweynaa barnaamijka ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee taabagelinaysa shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo Awkar Ali Axmed Ramadaan Kariim awkar number soo baxso number 2 qaaradda ugu weyn adduunka laga rabaa shanta qaaradood adduunka mida ugu weyn magaceeda sheeg qaarad adduunka adduunka saan ognahay waa shan qaaradood Soomaa shanta qaaradood mida ugu weyn magaceeda la sheeg bis Aasiya hambalyo waa Aasiya qaaradda ugu weyn adduunka waa Aasiya hambalyo awal marintiisa uu leeyahay ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo soo dhawo Maxamed Ibrahim Xuseen maxamed waa laba su'aal noo hartay number soo baxso number 4 nyaanyuurta ilkaheeda meeqa waay isku day nyaanyuurta ilkaheeda waxa waaye 4 waay oo maasan tahay maadan haleelin ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadaan oo ay taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adigoo magaca ku bilaabayo Abdullah Cabdi Aadan u dhawaay ay su'aalaha numberka soo baxso بسم الله أهلا وسهلا أموره نمبر 5 فرعون وزيركي لا شقين جري
magaciisa sheeg haamaan waay hambalyo wasiirkii la shaqayn jiray fircoon magaciisa waa haamaan wuu ku guulaystay abaalmarintiisa barnaamijkeeni wuxuu noo marayaa gabagabo hal su'aal ayaa hartay qofka jawaabi doono oo qaadan doona abaalmarinta soo hartay aan aragno ugu horeen ku soo dhawo barnaamijkani su'aalaha ramadaan ee taabagelinayso shirkadda Go Turkan Study adoo magaca ku bilaabayo بسم الله مقعي وفات عسى الشغل هذا أو فرحسنا هناك سوق يبقى اوكي فهدو نمبر كان ugu dambeeyo soo baxso iyo su'aasha ku jirto iska ogow نمبر 4 nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay waa su'aasha laga jawaabi waayay hadaa ka jawaabto nasiibkaaga leedahay nyaanyuurta ilkaheeda meeqa waay waxay leedahay 24 oo ma santahay maadan haleelin ugu horeen ku soo dhaw barnaamijka adoo magaca ku bilaabayo cabdinuur aadan cilmi waa dhawaay goobta insha Allah barnaamijka hal su'aal soo haray waa number 4 waxayna leedahay nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay yaanyuurta ama bisada ama nyaanyuur meeqa ilkooda ay leedahay ama mukulaal waxa u taqaanid mukulaal aad u weyn waa magac badan taaniyo waan isku dayaa waxay leedahay 30 ilkood oo soo dhaweysay laakiin ma aadan haleelin waa ma santahay ugu horeen ku soo dhaw barnaamijka tijaab nasiibkaaga ee taabagelinayso Go Turkan Study magacaada ku bilaabayo Axmed su'aasha soo hartay waa mid su'aasha afraad nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay dad badan way soo hareer martay adina nasiibkaaga tijaabi xaalada 16 oo ma santahay adina ma aadan haleelin oo ku soo dhaweynaa barnaamijka ugu horeen ku soo dhaw barnaamijka adiga magaca ku bilaabayo oo ku dhawaay barnaamijka Faisal Abdulqaadir Maxamed magaciiga waxa soo haray hal su'aal oo leedahay dad badan way soo hareer martay nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay yaanyuurta waxay leedahay 26 oo ma santahay maadan haleelin ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo Yaqub Maxamed Cali Yaqub nyaanyuurta meeqa ilka ay leedahay waa su'aasha soo harta kaliya 40 ilka ay leedahay hambalyo wuu ka jawaabay nyaanyuurta waxay leedahay 40 ilkood abaalmarinta soo sii waa tahay halkaas ayuu nagu idlaaday shantii su'aalood abaalmarintii waa wada dhiibnay barnaamijka waxaad ka daawan kartiin YouTube-ka shirkadda Go Turkan Study halkaas nagala socda marka laga reebo maalinimada jimcaha ah barnaamijka waxaa taabagelinaya shirkadda Go Turkan Study waa maasantiin dhamaantiina